السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين محمد أمين channel كاغل سوعتنا مجدا ونسألنا وأمين ميديا. فضلا كسر هذا مقال عصب وسود وين دمان أصحابته ولا لذا كعصب channel كنا حاليا كسر هذا رنهان دي ما تمدوني إن مقال كهذا موضوع عن كهذا لكن وحنوصل قلي رنهانتي قلبي جرى قادسي أرن مهمة ورنانتي aan doonayo qof kastoo muslim ah oo walaal ah oo Soomaaliyeed inaan arintan la wadaago oo channelkan ku xiran ana ka codsanayo qof kastoo arko clipkan inuu sii gudbiyo si walaaltinimo ah si muslimnimo ah si ixtiraam ku jiro waa clip yar oo ah hooyo Soomaaliyeed oo cunugeeda 9 bilood jiro xanuunsan madaxa ka xanuunsan yahay marka ranaantii waa muuqaal aniga xalay markaan daawanayay aad ii murug galiyay qalbigayga dhaqaajiyay qof kastoo daawada muuqaalkaana run ahaantii uu ka guban doonaa wax kasta ilaahay keeno wal adduunkana walaaligu haddaan is caawinin waxna caawinay ma jiraan haddaan isku naxariisano eebaha weyn ayaa la naxariisanayo marka dhammaanteena walaalayaal aan isku naxariisano hooyadaasi waxay noogu baahan tahay garab waa hooyo Soomaaliyeed gabadha xanuunsan waa gabar yar oo 9 bilood jirta oo xanuunsan run ahaantii madaxa ka xanuunsan marka ilaahay waxaan ugu baryaynaa markood inuu ilaahay caafiyo fadlan muuqaalka hadda ayaan soo gelinaya insha Allah muuqaalkan hordhac ayaan kan ugu dhigay macnaha hadalkaygan fadlan hadda caawin kartid wax ku sadaqaysan kartid hooyadaasi lambarkeeda meesha ku qoran yahay ku sadaqayso haddii aad u duceyn kartid u ducay haddii waxa kaliya ugu yar asmeyn karto xaway inaad sii shargarisid oo walaalada kale sii gaarsiisid run ahaantii walaal maanta inta adduunka la joogo ayaa walaal yahay haddii aan maanta isku naxariisan weynin beriti ilaahay noo naxariisanayo meel kastoo joogno aan isku naxariisano hooyadaas Soomaaliyeed aan ka farxino qof kastoo qof bilaadan ama walaalkiis ka farxina ilaahay ayaa ka farxinayo muuqaalka ayaan daawan doontaan insha Allah taala ku soo dhawaada fadlan please waxaan ka codsanayaa muuqaalka marka daawatid in aad ugu yaraan si shargarisid wixii aad sadaqa ku dirsan kartid mawlaasha ku caawin kartid muslimada ku caawi u ducay si shargarasi ee walaalo badan u gaaran runaanta qalbigayga يعني ما تسدوا أيه إله أوك أد أيوم ما سنتين ما أنتين وأنا سلامي مركز جوكتان وحنا رجينا فرحات يا عافمات قبل أسنو حور رجينا عافمات هو إذا أسنو حور رجينا إن شاء الله تعالى إنه له قلبي هذا وكفر حيو إن شاء الله تعالى ولا هذا يقرب سيان مركز جوكن بركو لاشين أعاونه إله أن عابنيو كسر هذا المغالك إن شاء الله. السلام عليكم وحاسوب أخذي قبلي عنك كحنون سنة waxaa lagu magacaabaa Nasro ilmaha yar ee ka xanuunsan waa gabar waxay iigu sheegtay inay jirto 9 bilood marka iyada wixii faahfaahin ama cunugta xaaladeeda warbixin ay naga siinayso insha Allah. السلام عليكم مجيء وحوى نصر أحمد علي وعنب هويدا جودي محل عنب بقدر الجديد كل اللي تبيها كوية رايين سبتات بكتير جيني وحيد نحن خطة كفتير كباهية صح سبح بالكباهية دي يسيبتين وحيد إسكان على صاري وحيد أنا صاحبك خبكرنا مسكحنا الله وخيرتين صنك الأكسجين في عن كمية نسيتو أنا صاحبك خبكرنا وقناك وقاوي صح sida markaas ilaa ay hadda isbitaalo kala aan tagay waa la tacaalay bulshada la dhahayo waa tagay waa la tacaalay marka isbitaalkaas markay xidhaan oxygen fiican haysato maskaxda balal qayb anaga wax ma qaban karno qalinkeeda in hal mar la sameeyo waaye qalin oo degdeg ah anaga kan sameey karnay marka qolkii wiilka oo gabadha abaheed u bandhigtay waxay dheen anaga 33 kun ma awoodno oo maanta $33,000 صح وقليلة انت ودنك لو قبن كرا لو تركيا ميا صح $33,000 هذا aniga ma awoodin tulkeedana waxay ma awoodin tulku wiilka oo bandhigtay xida 33 ma awoodin marka xaaladda muslimiinta reer Maxamed wax barso meel kasta joogan dal iyo dibadda waxa iskahay wax barashada ee gabadha ku caadi kara هادي madaxeena waa ka ishaan hadda waa kana way soo dawoolantay ishaan hadda waa kana qof ku jirta يا الله ku jirta qaarkeed inta soo jeedina والله أنا ما أقاني هذا الكحتة يعني واحد كهذا لا أخوان لا درين كي قدام ويسبدلي مركالة كل ما هو إذا ودرين كرتين مرقته هيسو المهدي يسان وحنوسان
marka insha Allah muuqaalkan waxaa ka daawan doontiin janaalka Shukri Masalla hadduu ilaahay idmo qof walba oo rabo inuu caawiyo ama ilaahay dartiisa adduunyadana walaal lagu yahay oo jecel inuu ilaahay dartiisa u caawiyo hooyadan ilmaheeda ka xanuunsan oo la dhahay dalka dibadiisa wax loogu qaban karaa nambarka iyada idin sheegaysa insha Allah si toos iyada ula soo xiriiri kartiin wixii aad ku caawin kartiin markaasna iyada u soo diri doontiin insha Allah Nasra nambarkaaga adoo u sheegaya walaalahaaga furaha 6 eber 4 22 52 ku celi hal mar furaha 6 eber 4 22 insha Allah walaalaha muslimiinta marka ay ku daawadaan ee dhibkaaga culeyskaaga inay kula dareemi doonaan rajeena insha Allah oona yacni ku soo caawin doonaan garab ku siin doonaan waraaqihii waa kuwana oo isbitaalka kubi iskaanka kulli isbitaalka Digfaar waaye sa ujeedaanbo kaamilna waxaa laga saaray iskaanka Soomaha waraaqada iskaankana waa tan iyadana tii Turkiga lacagta ku bixaysan waa tan intay ku qoran tahay lacagta Turkish aanay u qoran tahay laakiin waxay igu sheegtay inay tahay $33,000 oo lacag dollar Mareykanka ah waraaqihii kalena waa kuwana marka dabcan waraaqaba idinka u baahneen cunugta indhihiina macallininida yani sida u xanuunsan tahay waa ilmo yar oo 9 bilood jiro waad aragtaa madaxeeda sida uu yahay maskaxdiya kala baran subxaanallah Allah marka insha Allah waxaa idinka codsanayaa qof walba oo muuqaalkan daawan doono inuu ilaahay dartiis u soo caawiyo hooyadan iyo cunugeeda waxay ii sheegtay in hore TV muuqaalo uga duubeen oo bulshada loo bandhigay hay Nasro faahfaahin ku saabsan dadkii maxaa dadku caawiyo hore muu aragto kula soo xiriiray waa qanaad waxa laga duubay oo radio Muqdisho waxa kale lagu duubay SNTV radio dowladda marka waa to darada ugu dambeysay oo laga duubay 5TV qanaadka wadahayo marka qanaadkan had afari muslimaan waxaan ku codsanaa waa meesha lacagta igu soo gashay labada raadi had ugu dambeeyay wax igu soo galay oo ilaaha wax bixiyo alxamdulillah marka labada raadi lacagta igu soo gashay $3,500 waa hada $3,500 maalintii xanuunsato amaantii markaas iyada wax u baahato lacagtaas oo ugu sii bixiya lacagta laga rabana 33,000 waaye lacagta laga rabana $33,000 waqaalada hore lagaaga duuban waxa ka soo galay lacag 35 yani $3,500 aad waa $3,500 hadii maanta isbitaalka u baahato amal naqas marka uu ku dhago hatankeeda waa kana neef naqas marka uu ku dhago dabeel xoog hadii aragto lacagtaas ugu bixiya isbitaalka oxygen lagu xiraa إن شاء الله ولا لا حرجنا إنك سو عامل دونا سو عاميان واو دنتي وأوشك شيء بدي هاي السنة وأوشك إن شاء الله